iyadoo shalay toole magaalada Hargeysa uu ka daay roob aad u ballaaran oo geystay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa magaalada Hargeysa roobkaasi ka bilaabmay gelinkii dambe shalay toole isagoo roobkaasi socday muddo ayaa wuxuu guud ahaanba kala xidhay isku socodkii iyo ganacsigii magaalada Hargeysa iyadoo waqtigii roobku bilaabmayay dadku isku diyaarinayeen waqtigii afurka ayaa waxa ay waxyeello badan soo gaarsiisay guryaha isagoo ka qaaday jingadihii isla markaasina wadooyinkii xidhay meelaha waxyeelada soo gaarsiiyay roobkaasi waxa kamid ah dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa oo jingadii ka dulqaaday qaybta stoorka ee lagu kaydiyo daawooyinka iyo qayb kamid ah dhismaha dhimirka oo dumay haddaba sidoo kale dadkii ku soo dhaawacmay roobabkii shalay toole ka daay magaalada Hargeysa oo dhakhtarka weyn la soo gaarsiiyay ayaan waxaan ku booqanay dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa waxaana dadkaasi oo aad u jilicsan inooga warrameen xaaladooda wallahi waxay ahayd afurada horteedii afuradii baan xaafadayda tagay waxa dhacday markaa islaan xanuunsanaysay oo sariirteeda jiifta sariirteedii fadhida mid togaa sii mar afradina in yar baa ka harsanay guri fooqaa naga dambeeyey oo la dhisaayo kursigii markii la soo dhigay aan la hadlay islaantii aan fadhiyay wax soo daataatay wax waaweyni waxay igu xigtay uun dan iyo anuu halkan jiifo ما يفهم ها markii dambana halkan aanu jufun baan iska mariya ma islaantina waa dhimatay oo waxay ku jirtaa halkan bay ku jirtaa qawjiyaha iyo iskuulka xalana maaragtay tukriga gidaar xuno dhamaadon dhisnayn ayaa anagoo 7 qof oo meel ku kala jirin laba meelood nagu soo fadhiistay meesha ma noocmee waa iskuulka xalana meel muqaaxibeed meel sadaqad bayd aniga islaan muqaaxiban ku jirnay khadra cali leeynaad in labada nin ee dhimatayna iyo labada kalena meel ba ku wada jireen islaana dabayshii baa dibadda ku tuurto jiingada ku dhacay 7 qof baan ahayn 7 qof meesha ku jirtay 7 qof imisa ku dhintay meesha laba nin baa ku dhintay xagana ku dhintay labada nin dhaawacii soo gaaray xagana ku go'ay labada marka aan dhabarkaas iga soo gaaray jugti magaranaysa ayaa dhabarka bartankiisa ayaa labankii waxay kaga fadhiistay islaantii igula jirtayna iyadoo afka sanka dhiig ka sii daynaysa ugu dambeysay wanarkiina sanka afka dhiig ka sii daynaysa aniguna nafxarbigii baan ka baxay meesha qoladan birta tuntay masaakiinta dee masaariifta eriisay baan nahay meesha ma ka jirsadan inuu dee ilaahay raxmaankii uu nagu soo dabiyoon marka meesha isu dintay meel nooc ma ahayd meesha waxay ahayd meel ma garan jinkad iyo wax yaani dhakhtar agteeda ayadoo soo wada duntay ayay ahayd oo meel shan ku shaqeynay agteedan bahayd marka imisa qofada inay roobka ka jirsanayeen marka anigu waxaan imika 7 qof iyo 8 qof midkood ayaan imika aad waan bedelbay markii ma garan marka 7 qof ku jirteen imisa qof wax ku noqday imisa ku dhintay waxa ku dhintay horta labiyo waan hubaa oo ku dhintay inta kalena waa dhaawac wax meel ka jabay iyo wax bastiyay imika dhabarkaas aan malayno in wax imika dibaaraysa dhabarka way halka maxaa ka hayn xaga wajiso waxa iga galay fatiiqyadii iyo wixii alaabtii bay gashay birihii baa iga galay iyo wixii meesha biray lahayd ma garanaysaa dhagaxii iyo birihii iyo sidaa way ugu fadhiday maanta oo dhan bay ugu fadhido goorta ma baleelayba agaasimaha isbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar oo wax ka weydiinay tirada dhimashada iyo dhaawaca la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay runtii waxa dhacday deewan ognahay oo waa roob iyo dabayl ayaa dhacday roobka iyo dabaysha soo dhibaato gaarsiiyay oo dhibaatadaasi ay tahay mid naf iyo mid maalba isbitaalka waxa soo gaaray dhaawac maartay runtii fara badan oo xaalado culus oo badan ku jireen ilaa 22 qof waa dhaawac bay ahaayeen ilaa 4 qof way ku geeriyootay oo maartay iyagana noo keenay ama halkan ay ku geeriyoodeen markay soo gaareen dhibaatadaasi waxa ka timid duufaankii dhacay iyo khaas ahaan nabaradii ka soo gaaray dadka maartay ama darbiyad gudumay ama jiingado ama daad qaaday ayay maartay xaaladu ka timid marka dhaawacyada culus waxa aan ku darbiyadii ku dumeen ama kuwa ku geeriyooday kuwa ay maartay marka ku dhaceen guryaha ku dumeen ee gidaarada ku dumeen baa waxaad ogtahay isbitaalku inuu heegan leeyahay joogta oo marka wax kasta oo yimaada ay jirto qaybta gargaarka degdega oo iyadu 24 saacadood ay shaqaale ku sugan yihiin waxa kale oo jira nidaam baan leenahay in la isku gurmado marka oo shaqaalaha kale gudaha ku jira xitaa ay marka la soo dhaqaajiyo oo marka laga wada qayb galo waxa anu ku dhigay waan marka waqtiga waan joogay
waxaana maartay aad baa looga howlgalay oo waxa weeyaan dhalinyaradu yacni dadkii way hanteen waana wixii ay u qaban kareen oo qabteen dadku way isku jirjiraan dadku dad waaweyn iyo dad yaryar bay lahayn markay wax dhacaan ma laha yacni waxaan arkaa da' gaar ma aha waxa weeyaan qoys baa meel ku wada jira aabihii hooyadii inuu gaadhaan baa laga yaabaa dad waaweyn baa ku jiray dadka dhintay dad waaweyn baa ku jiray asaasi dhinaca kale Dr. Axmed Cumar Askar agaasimaha guud ee Cisbitaalka Hargeysa ayaa ka hadlay roobkii shalay toona ka daayay Hargeysa oo waxyeello badan u geystay Cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa halka uu jiingadii ka dulqaaday isla markaasina qayb ka mid ah qaybta dhimarka uu dumay waxa weeyaan duufaanka dhacay oo aad u xoog badnaa waxa weeyaan meelo badan oo cisbitaalka ay khasaare soo gaarsiiyay waxa ka mid ah derbiga gudaha oo qaybta dumarka dhimirka oo markaa dumay oo dhacay waxaa jira daad galay maartay meelaha muhiim ah oo maartay dadka loogu adeego iyo xafiisyada waxaad aragtaa imikood hoos joogtaa waxa weeyaan waa kaydkii dawada iyo qalabka cisbitaalka oo aad arkayso in maartay usaqafkii kala tegay duufaankii roobkani ka daayay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxay ahaayeen roobab aad u laxaadley isla markaasina waxa loo baahan yahay in lagu mahadnaqo nimcada Eebe sidoo kalena waxa magaalada Hargeysa wadooyinka kala duwan dawladda hoose ay ka gurayeen xarkaha leydhka iyo biraha kala duwan ee leydhka oo wadooyinka roobkaasi ku soo dhex jiifiyay isla markaasina ay dawladda hoose caasimadda Hargeysa waqti xadirkaasi ay ku howlanayd Khadar Maxamed Maxamuud telefishin qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa